dambiga uu galay abaalmarin dilkiisa uga dhigi mayno ee waxaan u dhaafaynaa jiilalka dambe mid ka mid ah hogaamiyayaashii ciidan ee taariikhdu aanay dib u dhali doonin isagoo kale kuwani waxay ahaayeen weedhihii uu ku tiraabay Hitler markii uu khiyaamo kala kulmay taliyihii ugu dhiiranaa xukuumaddiisa sidee baanu u noqday qofkii ugu horreeyay ee khiyaameeyay Hitler misana aan la daldalin waa maxay xidhiidhka kala dhaxeeya u dabaaldega sanad guurada maalinta dhalashada xaaskiisa iyo jabka dawladda Jarmal ee dagaalka waa nin aanay marnaba iloobi doonin carrada saxaruhu Erwin Rommel da'diisu markii ay ahayd 35 jir ayaa uu dabarka u xidhay jacaylkii kala dhaxeeyay gacalisadiisa Lucy sanadkii 1916 waqtigaasi waxa uu ka tirsanaa ciidamada militariga ee Jarmalka balse farxadiisa oo aan dhamaystirmin ayaa loogu yeedhay inuu raaco shabahada holcaysa ee iska caabinta xilligii lagu guda jiray dagaalkii koowaad ee adduunka halkaas ayaanu ku dhadhamiyay qaraarka guuldarradu ay leedahay oo uu kala kulmay Ingiriiska Faransiiska iyo xulafadooda waana arinta ku riixi doonta Rommel inuu dib u noqdo isagoo damacsan argoosi iyadoo ay wehelinayaan Hitler iyo Naasiyiinta hadda waxa uu qayb libaax leh ka qaadanayaa inuu Hitler ku soo dhawaado xukunka Jarmalka iyo kan Yuruba xilli ay ciidamada Jarmalka ku soo hoobanayeen duqeymaha xagga cirka ee xulafada dagaalkii koowaad adduunka Rommel waxa soo gaadhay 3 dhaawac oo halis badan isagoo looga tagay goobta dagaalka ilaa ay dawladda Jarmalku isdhiibtay jacaylka uu qabo wadankiisa iyo diidmada qayaxan ee guuldarrada ayaa ka dhigtay Hitler mid soo jiidata waxaanu ka dhigay xubin muhiim ah oo ka tirsan xisbigiisa cusub kaasoo ay ku yeegleeleen inay ku soo celinayaan sharaftii Jarmal ee luntay iyo ka argoosiga cidda ka gacan sarreysay kuna qasabtay inay u hoggaansamaan shuruudo godobaysan wuxuuna Rommel isu bedelay askari halyeeyay ilaa uu noqday mid ka mid ah ilaalada Hitler ee khaaska ah isagoo ka mid ahaa 8 askari oo loo ogolaaday inay galaan xafiiska Hitler iyo qasrigiisa iyagoo aan la baadhin inkastoo aanay ka baabi'in nabaradii ka soo gaadhay dagaalkii koowaad adduunka waxa uu ku riyoonayaa lana qorsheynayaa Hitler mixnada argoosi Erwin waxa uu ka mid ahaa unugtii ugu horreysay ee gasha Poland kadib markii lagu dhawaaqay dagaalkii labaad ee adduunka si uu xaqiijiyo guul sahlan oo ka dhigtay Hitler inuu madax uga dhigo jabhadda Faransiiska iyo Belgium halkaas ayaa uu kaga argoosanaya Rommel xoogagii Faransiiska inkastoo ay dhufayso galeen haddana gabi ahaanba ciidankii halkaasi ku jiray waa uu ku gubay isla markaana waxa uu suura gashay waxa uu damacsanaa oo ahayd inuu galo sanadkii 1940 caasimadda Faransiiska ee Paris kadib dhibaato uu kala kulmay argoosigii labaad oo ahaa Ingiriiska waxa uu go'aansaday inuu ka baxo Faransiiska una kicitimo waqooyiga Afrika oo ay ku sugnaayeen xoogaga Ingiriisku halka ayaanu ku ifayaa xidiga Rommel cid aan isaga ahayn Ingiriisku ka cabsani maayo sanadkii 1941 ayaa Rommel ururiyay ciidamo isugu jira Jarmal iyo Talyaani iyagoo ka ambabaxay Liibiya una jihaystay wadanka Masar halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada Ingiriiska oo Rommel ka dhigi doono qurbo iyo hadhaa ciidan firxadkooguna waxay galayaan deegaanada waqooyi ee dawladda Masar si uu helo Rommel naanaysta dawicii saxaraha oo ku mutaystay kadib markii uu tirtiray ciidamadii Ingiriiska oo 3 laab ka badnaa kuwa Rommel markii uu warku gaadhay Hitler waxa uu ugu dhawaaqay darajada Marshal warbaahinta naasiguna waxay ku tilmaamtay geesiga Jarmalka ee cusub guulihiisuna waxay noqdeen kuwa reer Jarmal tusaale iyo astaan ay ku faanaan ah waqtigaas waxa mandaqada caalamiin isku urursaday ciidamo Ingiriis ah oo rabay inay jawaab ka helaan hogaamiye Rommel isaguna ganafka ayuu ku dhuftay balse Hitler ayaa ku qasbay inuu ciidamada hore u qaado taasuna waxay horseeday inuu Rommel u jeestay halka iyo ciidamada Ingiriiska isagoo aan haysan dahar sare oo ciidamada jawiga ah iyo taageero kaleba waxaanay ku hagtay inuu dhadhamiyo guuldarradiisii ugu horreysay ee caalamiin ciidamada Ingiriisku kuma aysan guulaysan inay nolosha ku qabtaan hogaamiyahan Hitlerna waxa uu ku amray Rommel inuu dib ugu soo noqdo Jarmal si uu ugu diro jabhadda waqooyi ee Faransiiska ku sugan shaqadiisa cusubna waxay noqotay inuu ka manciyo xoogaga xulafada in ay soo degaan xeebaha Faransiiska Rommel waxa uu suura gashay inuu shaqadiisa si hagar la'aan u qabto ilaa uu yimi sanad guuradii maalintii dhalashada xaaskiisa oo uu go'aansaday in uu ka yimaado jabhaddaas dabadeed waxa uu uga soo iibiyay Paris isagoo aan Hitler ogeyn si uu ula dabaaldego xaaskiisa intuu ku guda jiray xafladii dhalashada ayaa waxa soo gaadhay warka masiibadii Normandy ee caanka ahayd taasoo wadamada xulafada ay markii ugu horreysay ay jiireen jabhadii Jarmalka iyagoo gaadhay xeebaha Faransiiska waxaanay barbilow u noqotay guuldarradii Jarmalka ee dagaalka markii uu Hitler ogaaday arinta Rommel ayaa uu si degdeg ah ugu yeedhay waxaanu ku xidhay qasrigiisa sanadku markuu ahaa 1941 waxaanu ku eedeeyay khiyaamo qaran iyo inuu maleegay isku daydil oo Hitler lagula kacay bariga Prussia iyadoo loo tixgelinayo shacbiyadda Rommel iyo waxqabadkiisa ciidanimo ee taariikhda galay iyo shaqadii halbowlaha ahayd ee uu qabtay Jarmalka waxa Hitler ka codsaday inuu nafta gacantiisa isku dhaafiyo si uu magaciisa uga ifa taariikhda reer Jarmal
iyo hogaamiye difaacay waddankiisa oo aan weligii khiyaamin. bishii Oktoobar sanadkii 1944 ayaa ciidamada Jarmalku ku dhawaaqeen dhimashada Rommel, waxaana loo sameeyay aas qaran sida hogaamiye ciidan naasi oo weyn una shaqeeyay Hitler iyo dowladda Jarmalka.